assalaamu calaykum. wuxuu isku dayay duminta kacbada isagoo wata ciidan maroodiye ku qalabaysan, laakiin shimbiro afka dhagax daba ku wata ayaa soo afjaray duulaankiisii. haddaba waa kuma ninkaas? wax yar kadib ayaan ogaan doonaa arrinkaas. inteenna badan waan maqalnay qisada iskudayga duminta kacbada, waxaana ku soo degay suurad qur'aanka ka mid a, laakiin waxaa laga yaabaa in aanan faahfaahin dheeraada ka haynin arrinkaas. ninkan qisadeenna ku saabsan tahay ee isku dayay duminta kacbada waxaa lagu magacaabaa abraha binu sabaax al ashram abramas. magaca abraha wuxuu ka dhigan yahay ibraahim. abraha wuxuu ahaa waaliga ama barasaabkii u qaabilsanaa boqortooyadii aksum dhulka yemen oo xilligaas hoos imaanayay boqortooyada xabashida. abraha wuxuu aad ula yaabay siday carabtu ugu xajiyaan kacbada iyo qiimaha ay u hayaan. waxaa xusid mudan in dhacdooyinkan ay ka horreeyeen dhalashadii nebiga wuxuu dhalan doonaa dhammaadka qisada halaaga abraha. carabtu waxay qaar badan oo iyaga ka mid a aaminsanayn diinta ibraahimiyada, aad ayayna u xushmayn jireen kacbada xitaa kuwa mushrikiinta. haddaba abraha kiniisad aad u weyn ayuu ka dhisay magaalada sancaa ee yemen si uu carabtu ugu qasbo in ay u soo xajiyaan. waxaa la sheegay in weli haraadigii kiniisaddii uu abraha dhisay ay sancaa ku taallo. kadib dhisidda kiniisadda warqad ayuu u qoray boqorkii boqortooyada aksum ee ku sugnaa dhulka etoobiya loo yaqaana maanta, gaar ahaan gobolka tigraay. wuxuuna u sheegay in uu dhisay kiniisad aad u weyn si ay carabtu ugu soo xajiyaan. qabaa'ilka carabtu aad ayay uga xanaaqeen una diideen u xajinta kiniisadda abraha ee sancaa. waxaa la sheegay in nin habeen madow u soo dhuuntay kiniisaddii abraha dhisay, kadibna derbigeeda ku malaasay saxradadeed. arrinkaas aad ayuu uga xanaajiyey abraha, wuxuuna wacad ku maray duminta kacbada. abraha wuxuu diyaariyey ciidan aad u weyn, hormuudna u yihiin maroodiyo aad u tababaran. qabaa'il badan oo carbeed ayaa isku dayay in ay hor istaagaan abraha iyo ciidankiisa. nin lagu magacaabo duunafar oo qabaa'ilka yemen ka mid a ayaa qabiilkiisa u diyaariyey in ay la dagaalamaan abraha, laakiin cagta ayuu mariyey, wuxuuna maxbuus ahaan u qabtay duunafar. abraha iyo ciidankiisa maka ayay af ka saareen. waxaa isku dayey sidoo kale inuu la dagaalamo nufayl binu xabiib iyo qoomkiisa, laakiin sidoo kale waa la jebiyey. ninkan dambe abraha wuxuu ka dhigtay dhul aqoon ilaa ay ka gaareen magaalada taa'if oo 68 kilomitir u jirto makka almukarama. abraha markuu taa'if gaaray waxaa ku soo baxay qabiilka halkaas dega ee thaqiif oo asnaamta caabudo. kadibna iyagoo ka baqayay in uu ciidanka abraha dumiye sanamkooda laati ay caabudi jireen, ayay u sheegeen in ay maka tusi doonaan iyo kacbada meesha ay ku taallo. reer thaqiif ciidanka abraha waxay ku dareen nin geeya maka oo lagu magacaabo aburiqaal, laakiin jidka ayuu ku sii dhintay. qabrigiisana markii dambe carabtu waxay u beddeleen meelay dhagaxa ku tuuraan xumida ficilka uu sameeyey darteed. abraha wuxuu u diray guuto ciidan ah meel maka iyo taa'if u dhaxayso lagu magacaabo almaqmas si ay u soo kaxeeyaan xoolaha quraysh. waxaana ka mid ahaa 200 oo neef oo geel uu leeyahay cabdilmutalib binu haashim awowga nebiga ahna suldaanka quraysh iyo hoggaankooda ugu sarreeya. abraha nin ergey ayuu maka u diray isagoo raadinaya madaxa ugu sarreeyay maka oo ah cabdilmutalib binu haashim. wuxuuna u sheegay farriinta abraha oo ah in ayna u imaanin in ay la dagaalamaan, ay u imaadeen keliya duminta kacbada. haddii ay waddada u banneeyeenna dhiiggooda uusan rabin. cabdilmutalib wuxuu ugu jawaabay in ayba awoodinba inay la dagaalamaan abraha, guriganna jiro ilaah difaacan doono. abraha wuxuu amray inuu la kulmo cabdilmutalib. markii uu arkay heybaddiisana aad ayuu u karaameeyey, meel fiican ayuuna fariisiyey, wuxuuna weydiiyey in uu wax ka dalbado. dalabka cabdilmutalib wuxuu ahaa in uu u soo celiyo 200 neefa geelkeeduu ka qaatay. arrinkaas aad ayuu uga yaabiyey abraha. waxaan u imaaday in aan burburiyo beydka diintaada iyo jiritaankaada, adigana waxaad iga dalbanaysaa geel. jawaabta cabdilmutalib waxay ahayd geela anigaa iska leh, kacbadana rabbi difaacan doono. cid hor istaagi karta ma lahan abraha. ciidankiisi ayuu dhanka maka u dhaqaajiyey, laakiin waxaa la sheegay in maroodiyadu diideen in ay u dhaqaaqaan dhinaca maka. haddii loo jeeday dhinac kalena dhaqaaqayaan, waxaa qornayd halaaga ciidanka abraha. waxaa la arkay raxan shimbiraha oo mid kasta uu wato 3 dhagax, mid afka, 2na lugaha, waxayna ku rusheeyeen ciidankii abraha. isku dhexyaac iyo fawdo ayuu ciidanku galay. abraha ayaa ku qayliyey aaway nufayl binu xabiib si uu u tuso waddada yemen loo aado. ninkan waa ninkii yemen kula dagaalamay oo wadda aqoon ahaan uu u soo qafaashay, laakiin nufayl isagoo aad u faraxsan ayuu ku qayliyey ayna almafaru walilaahu taalib walashramu almaqluubu laysa alghaalib. xaggeed u baxsan? ilaah ayaa arrin doonayo. ashram oo abraha ahna
waa laga adkaaday mana guulaysanin. ciidanka abraha wuxuu la kulmay jab aad u xun, waxayna shimbiruhu gubeen ciidankii xabashida. qisooyinka taariikhda waxay sheegayeen in abraha isagoo dhaawac ah uu u cararay sancaa yemen, isagoo jirkiisa marba in go'ayso. safaxaadka taariikhda waxay qorayeen in abraha si xun uu u dhintay, siduu marbacad u go'ayay jirkiisa. ilaahay si tafaasiil hoose aanan lahayn oo guud ayuu arrinkan uga hadlay. acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim. bismi illaahi alraxmaani alraxiim. alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil wa arsala calayhim tayran abaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajcalahum kacasfin ma'kuul. ilaahay wuxuu ku tilmaamay ciidanku in uu noqday sidii caws xoolo daaqeen oo kale. kacasfin ma'kuul, wax lagu tuntay oo lagu is-istaagay. dhacdadan waxaa lagu magacaabaa caamul fiil, sanadkii maroodiga, waana sanadkii uu dhashay rasuulka sala allahu calayhi wasalam, waana 53 sano ka hor hijradii rasuulka ee madiina, waana 571 miilaadi. kadib 4 sano dhacdadaas yeman waxay gashay gacantii furus ama beershiyaanka, waxaana soo gabagaboobay xukunkii xabashida ee yemen iyo najraan, sacuudiga qayb ka mid a maanta.